waxaan tacsiir runtii u dirayaa tiiraanyale guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee ay nimankan dhibaatada ku hayaan, gaar ahaan ilmihii iyo hooyooyinkii iyo walaalihii ay ku xasuuqeen gobolka Hiiraan iyo meelo ka mid ah Galgudud. waxaan leeyahay inta dhimatay waa shuhado, Allah u naxariisto, inta dhaawacana Allah u boogadhayo. waxaan laakiin ugu hambalyeynaya sida ay uga jawaabeen oo ilaa hadda ay uga jawaabayaan shacabka Soomaaliyeed, beelaha Soomaaliyeed, wiilasha Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed, ayaga oo kaashanaya oo runtii u heshanaya qaybaha kala duwan ee xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaan leeyahay waad mahadsantihiin jawaabaha ay bixinayaan iyo siday isooga celinayaan, runtii way ku mahadsan yihiin. xukuumadda iyo dawladdu way garab taagan tahay, jawaabaheedana way arkeen, haddana way sii arki doonaan, wayna sii garab taagnaanayaan ilaahay idinkiisa. inay duulaan qaadeen oo meelo adag oo ay fadhin jireen oo ay Basra ka mid tahay ay ka xoreeyeen oo ay fogeeyeen, weliba eryeen. insha Allah wayna sii daba socon doonaan, waana ugu hambalyeynaya, way ku mahadsan yihiin. guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kastay joogaan iyo gobol kastay ku nool yihiin, waxaan u soo jeedinayaa gaar ahaan magaalada Muqdisho kuwa ku nool kow ka yihiin, walaalayaal waxaan galnay dagaal baan ku jirnaa. markaad dagaal ku jirtana cadowga waa la xanuujiyaa cadowga. markaad dagaal ku jirto, markuu xanuunsado waxaa lagu yaqaanaa reactionkiisa iyo jawaabta uu bixiyo. jawaabta uu bixiyo hadday noqoto mid naflacaariya oo waxa hadda dhacayood aragteen, macnaheedu cadowgu wuu dhintay, waa daciif, ha ka harin. mar haddaynu dagaal galloon goosannay dagaal, mar haddii aan cadowga xanuujinnay, waxbaa inaga soo gaaraya. dadka Soomaaliyeed waa inay ogaadaan cadowgu jawaabuu bixinayaa, xanuunnaa imaanaya. xanuunaha waa inaan ku talagalnaa. qur'aanku ilaahay ku sheegay in takunuu ta'lamuuna fa innahum ya'lamuuna kamaa ta'lamuun. haddii aad xanuunsanaysaan, saxaabada saasaa lagu sheegay, haddaad xanuunsanaysaan oo dagaalku aad ku dhimateen ood ku dhaawacanteen, waxaad ogaataan ayaguna way xanuunsanayaan sidaasoo kale, way ku dhimanayaan, way ku dhaawacmayaan. laakiin maxaad dheertihiin? watarjuuna min allaahi maa laa yarjuun. ilaahay baad ka rajaynaysaan idinku waxayna ayagu ka rajaynayn. maxaa jira ayagu daalimiin, ilaahay bay ka soo horjeedaan. masaajidka kii ku tukanayay dilayaan, gabadha Soomaaliyeed bay dilayaan, canuga Soomaaliyeed bay dilayaan, dawladnimaday hor taagan yihiin, noloshay hor taagan yihiin. Soomaaliya inuu cad u haystay go'aan ku gaadheen oo isa ahaato. waa la soo diray, ma aha wax oo ha u malaynaya iska soo baxay, ma aha. sidaa darteed dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay, haddii ay qarxiyaan, haddii ay toogtaan, hadday dilaan, waxaad dagaal baad ku jirtaan, cadow baad la dagaalamaysaan. waa xanuun ka mid ah xanuunada idinka soo gaaraya, waana laga gudbi doonaa markaad jabisaan. haddii ilaahay waana la jabinaysaa.